galbeedkaas iyo xuduudda ay ka wadaagaan dawladda Itoobiya iyo Suudaan ay ku qabsadeen ayaa maanta haddana waxay u soo daateen oo ay bartamaha u soo galeen caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa waxa ay weliba ku harqeeyeen oo ay ku weerareen gantaalada weliba kuwada ridada dheer meelaha ay bartilmaameedsadeen waxa ka mid ah airportka magaalada caasimadda ee Addis Ababa waxa weliba la arkayay ciidamo weliba ku labisan dreeska ciidamada federaalka oo ka tirsan ciidamada Fano oo wata gaariyaasha loo yaqaan Cabdibillah iyo Helix inay weliba gudaha bartamaha caasimadda inta ay ku daateen weliba xabad furay oo weliba dagaal baan halkaas ka fulinayay taasna waxay ka dhigan tahay nabadii iyo kala dambeyntii caasimadda in badan ay ku faanayso dawladda federaalka ee Itoobiya ay markan gacanta ka sii baxday dagaalkuna ay markan u sii xoogstay oo la isku sii dhaadhacayo gunta iyo gunaanadka weliba lagu soo wada biyo shubanayo caasimadda ee dalkaas Itoobiya ee Addis Ababa